Salaamu calaykum carruurey. Maanta waxaan idinla wadaagayaa sheeko xiiso badan. Mar Dursley oo ahaa nin caadi ah oo ku nool magaalada ayaa lahaa maalin aan caadi ahayn. Wuxuu la kulmay dad ku labisan dhar qariib ah, wuxuuna maqlay hadal ku saabsan qoys la yidhaahdo Potter iyo wiilkooda Harry. Maalintii oo dhan Mar Dursley wuxuu isku dayay inuu iska dhigo inuusan waxba maqlin, laakiin mar kasta oo uu isku dayo inuu iloobo, waxa soo food saartay xasuus cusub. Xitaa markii uu xafiiska ka soo baxayay, waxa uu la kulmay oday Violet xidhan oo aad u faraxsan. Odaygii ayaa cod dheer ku yidhi, waa maalin weyn, xataa mugles ha u dabaaldego. Tani waxay walaac gelisay Mar Dursley, oo aan garanayn waxa dhacaya. Sheekadan xiisaha lihi waxa ay ina tusinaysaa sida ay dunidu mararka qaar uga buuxdo yaab iyo mucjiso. Haddii aad jeceshahay sheekooyin badan oo sidan oo kale ah, fadlan guji badhanka sabiskarab oo na raac. Waad ku mahadsan tahay daawashada. Waxaana rajaynaynaa inaan ku aragno casharka xiga.